soo dhawaada daawadayaal aan idila wadaago wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka socda dabcan meelo ka mid ah gobolka Sanaag iyo sidoo kale dagaal laga cabsi qabo inuu mar kale ka dhaco aaga tuulada Shidane faahfaahinta wararkii ugu dambeeyay ee caleemasaarka Cabdiqaadir Firdhiye madaxda ka qayb galaysa iyo xaaladda amni ee magaalada Laascaano sidee tahay ayaan sidoo kale ku faahfaahin doonaa ee soo dhawow haddii tahay markii kugu horeysay nagu soo biir muuqaalka like saar soo dhawow saaxiib dhaqdhaqaaq xooggan oo dhanka ciidanka ah ayaa si weyn looga dareemayaa magaalada Ceergaabo iyo deegaanada hoos yimaada dhowrkii saac ee la soo dhaafayna waxaa la dareemay culeysyo dhanka amniga ah oo ka imaanaya dhinacyo kala duwan ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa goordhow waxay ii xaqiijiyeen in maleeshiyaad ka tirsan beesha dhulbahante iyo kuwa warsangeli ay isku urursanayaan bannaanka magaalada Ceergaabo wararku waxay sheegayaan in dhowrka maalin ee soo aadan ay doonayaan inay ku duulaan maleeshiyaad dabcan markaasi hoostaga beesha reesha Isxaaq kuwaas oo la sheegay inay isku urursanayaan tuulada Shidane iyo tuulada Yubbe la yiraahdo oo ka tirsan gobolka Sanaag xogaha la helaya ayaa daawadayaal waxay tilmaamayaan in dhowrkii saac ee la soo dhaafay culeysyadaasi ay jireen iyadoo oo marka ka dambeysana dadka deegaanka loogu baaqayay inay feejignaan dheeraada galaan xogaha la helayo daawadayaal waxay tilmaamayaan in ay jiraan cabsiyo ama cabsi la xiriirta in Ceergaabo dagaal uu ka qarxo taas oo markaasi ku tusinaysa sida ay dhinacyadu u diyaar garoobeen iyo sida ay xilligan doonayaan inay duulaan weyn u qaadaan taas oo aan la ogeyn duulaankaasi halka uu ku biyo shuban doono ama waxa ka dambeyn doona Ceergaabo markaad eegtid gudaheeda dadku jawi degan ayay iskaga jiraan laakiin dhagta ayaa u taagan oo xataa mararka qaar dadku waxay isleeyihiin magaalada ma iskaga sii barakacdaan inta uusan dagaal weyn halkaasi ka dhicin waxaa soo baxaya warar iyo macluumaad sheegaya in beelaha dhulbahantaha iyo warsangeligu ay si weyn u diyaar garoobeen xafladda caleemasaarka Cabdiqaadir Firdhiye kadibna waxaa la filayaa in Ceergaabo duulaan cir iyo dhul ah lagu qaado si loo qabto loogana saaro ciidanka Somaliland laakiin aan ku xasuusiyo in heshiis wada difaac ay wada galeen Puntland iyo Somaliland heshiiskaasi wuxuu dhigayaa in haddii Ceergaabo la soo weeraro ay si wada jir ah u difaacaan Puntland iyo Somaliland waana mid kale oo dagaalka waji kale u yeeli karta maadaama haddii Ceergaabo la difaaco ay ciidanka waqooyi bari ku khasban yihiin inay duulaan ku qaadaan ciidanka Puntland wasiirkii hore ee amniga dowlad goboleedka Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab oo warbaahinta mar la hadlay wuxuu tilmaamay in Somaliland ay ka shaqeynayso inay madaxa isu geliso xubnaha ugu waaweyn saraakiisha ah ee maamulka waqooyi bari iyo Puntland wuxuu sheegay sidoo kale inay jiraan aragtiyo kala duwan oo ka imaanaya dhinacyo kala duwan kuwaas oo ku saabsan in Ceergaabo ay noqoto magaalo bahala galeen ah iyadoo Ceergaabo haddii uu dab ka holcana aysan cinadan ugu jirin ama ha noqoto Somaliland ama ha noqoto Puntland dhinaca kale waxaan eegayaa magaalada Laascaanood ayaa amnigeeda caawa si weyn loo adkeeyay iyadoo oo la arkayo ciidamo fara badan oo wata gaadiidka gaashaaman oo bannaanka magaalada amniga ka sugaya bartamaha magaaladana baaritaano ka wada maadaama madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo halka tagayo waa in amniga magaalada si weyn loo adkeeyaa oo Laascaanona ay noqotaa magaalo markaasi ka caagan faldambiyeedyo iyadoo intuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku sugan yahay magaalada Laascaanona uu la qaadan doono kulan duceedyo mas'uuliyiinta uu markaasi uu kala hadli doono arrimaha masiirka iyo mustaqbalka maamulka waqooyi bari dabcan Puntland iyo Somaliland isha ayay ku hayaan waxa uu sameyn doono madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud tagitaankiisa magaalada Laascaano iyadoo oo siciidanina uu ka careysan yahay ficilada uu ku kacayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dhinacyada waxaad moodaa inay markan sameynayaan dhaqdhaqaaqyo oo marka ka dambaysa la dareemayo culeysyo waaweyn iyadoo oo faahfaahinta wararkuna ay tilmaamayaan in amniga magaalada iyo deegaanada hoos yimaadaba si weyn loo adkeeyay oo la dareemayo in magaalada wufuud culus ay ku soo qulqulayaan sidoo kale dad qurbo joog ahaa oo muddo aan Laascaano tagin ayaa magaalada tagaya kuwaas oo sawirro qurux badan ka soo diray magaalada oo la xiriirta in magaaladu amni ay tahay waxay ku soo kordhawaynaa wararkeena dambe ee nabadgelyo waxay isu geliso xubnaha ugu waaweyn saraakiisha ah ee maamulka waqooyi bari iyo Puntland wuxuu sheegay sidoo kale inay jiraan
aragtiyo kala duwan oo ka imaanaya dhinacyo kala duwan kuwaasoo ku saabsan in ceergaabo ay noqoto magaalo bahalagaleen ah iyadoo ceergaaba haddii uu dab ka holcana aysan cinadan ugu jirin ama ha noqoto somalilan ama ha noqoto puntland dhinaca kale waxaan eegayaa magaalada laascaanood ayaa amnigeeda caawa si weyn loo adkeeyey iyada oo la arkayo ciidamo fara badan oo wata gaadiidka gaashaaman oo bannaanka magaalada amniga ka sugaya bartamaha magaaladana baaritaano ka wada maadaama madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo halkaa tegayo waa in amniga magaalada si weyn loo adkeeyaa oo laascaanona ay noqotaa magaalo markaasi ka caagan faldembiyeedyo iyadoo intuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku sugan yahay magaalada laascaanona uu la qaadan doono kulan duceedyo mas-uuliyiinta uu markaasi uu kala hadli doono arrimaha masiirka iyo mustaqbalka maamulka waqooyi bari dabcan puntland iyo somalilan isha ayay ku hayaan waxa uu samayn doono madaxweyne xasan sheekh maxamuud tegitaankiisa magaalada laascaano iyada oo siciidanina uu ka caraysan yahay ficilada uu ku kacayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhinacyada waxaad moodaa inay markaan samaynayaan dhaqdhaqaaqyo oo marba marka ka dambeysa la dareemayo culaysyo waaweyn iyada oo faahfaahinta wararkuna ay tilmaamayaan in amniga magaalada iyo deegaanada hoos yimaadaba si weyn loo adkeeyey oo la dareemayo in magaalada wufuud culus ay ku soo qulqulayaan sidoo kale dad qurbo joog ahaa oo muddo aan laascaano tegin ayaa magaalada tegaya kuwaas oo sawirro qurux badan ka soo diraya magaalada oo la xiriirta in magaaladu amni ay tahay waxay ku soo kordhowaynaa wararkeena dambe ee nabadgelyo